subxaanallah kani waa wiil Soomaaliyeed wuxuu hooyadii ku dilay magaalada Baydhabo. Daba wiilkan Soomaaliyeed ayaa hooyadii wuxuu ku sameeyay dil aad u fool xun isagoo madaxa kaga garaacaya dhagax. Sidoo kale hooyadiisa Soomaaliyeed ee 70 jirka ayaa madaxa dhagax u kala garaacay kadibna halkaas ay ku nafweeyday. Hadaba ciidanka magaalada Baydhabo ayaa u howlgalay si ay u soo qaban lahaayeen. Maxkamadda ayaa ku xukuntay dil toogasho Mukhtaar. Hadaba wiilkan ayaa maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho. Sidoo kale maxkamadda ayaa codsi dheer u dirtay in qof kasta oo dil geysta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa ku sheegay in qofkii nafta loo dilayo. Hadaba maadaama wadanka diinta Islaamka uu haysto qof walba qofku dilay waa loo dilayaa. Saas darteed ayaa ninkan loogu xukumay dil. Hadaba arrinkani wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay dawladda Soomaaliya ay ku soo beegantahay sidoo kale khalkhal amni uu ku jiro. Hadaba saaxiibayaal ku soo dhawaada bal muuqaalka laga soo duubay iyo sidii loo xukumay wiilkan ee waa kan ila daawo. dil bareera kaasoo gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan oo ahayd hooyadii isaga dhashay oo 70 jir ah. maxkamaddu markay aragtay aadii xafiiska xiriiraalinta ku soo eedeysay maxkamaddu markay aragtay xafiiska xiriiraalinta aad uu ku soo eeday kaasoo qodob 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanaha ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan. maxkamaddu markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo 45 suuratul Maa'ida. maxkamaddu markay aragtay cadeymaha iyo markhaatiyaasha la horkeenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxayna maxkamaddu ka hor cadeeyeen in eedeysana Mukhtaar Ibraahim Isxaaq iyo hooyadiisa Khayrto Shariif Xasan uu muran dhaxmaray isagoo dharbaaxyo wajiga kaga dhuftay kadibna madax dhagax kaga dhuftay isla bartaasna ay ku geeriyootay marxuumadda. maxkamaddu markay aragtay dukumiintiga iyo qiraalka eedeysanaha laga qoray sawirada iyo waraaqda cadeymaha dhimashada marxuumadda markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xiriiraalinta iyo qareenka difaaciga eedeysanaha sidaas daraadeed maxkamadda waxaa u caddaatay kaasoo xafiiska xiriiraalinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku soo eedeeyeen dil bareera kaasoo gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan oo ahayd hooyadii isaga dhashay oo 70 jir ah. maxkamaddu markay aragtay aadii xafiiska xiriiraalinta ku soo eedeysay maxkamaddu markay aragtay xafiiska xiriiraalinta aad uu ku soo eeday kaasoo qodob 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanaha ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan. maxkamaddu markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo 45 suuratul Maa'ida. maxkamaddu markay aragtay cadeymaha iyo markhaatiyaasha la horkeenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxayna maxkamaddu ka hor cadeeyeen in eedeysana Mukhtaar Ibraahim Isxaaq iyo hooyadiisa Khayrto Shariif Xasan uu muran dhaxmaray isagoo dharbaaxyo wajiga kaga dhuftay kadibna madax dhagax kaga dhuftay isla bartaasna ay ku geeriyootay marxuumadda. maxkamaddu markay aragtay dukumiintiga iyo qiraalka eedeysanaha laga qoray sawirada iyo waraaqda cadeymaha dhimashada marxuumadda markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xiriiraalinta iyo qareenka difaaciga eedeysanaha sidaas daraadeed maxkamadda waxaa u caddaatay dambiil
dembiile gacan ku dhiigle Mukhtaar Ibraahim Isxaaq uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qancin raacfaan ayaa u furan maxkamadda gobolka Baay ahna gudoomiyaha kiiskani eedaysana Mukhtaar Ibraahim Isxaaq ina khayrto Shariif Xasan 36 jir ah ku dhashay degan Baydhabo kaasoo xafiiska xeer ilaalinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku soo eedeeyeen dil bareera kaasoo gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan oo ahayd hooyadii isaga dhashay oo 70 jir ah maxkamaddu markay aragtay aadii xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeysay maxkamaddu markay aragtay xafiiska xeer ilaalinta aad uu ku soo eedeey kaasoo qodob 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysanaha ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu gacantiisa ku dilay marxuumad Khayrto Shariif Xasan maxkamaddu markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo 45 suuratul Maa'ida maxkamaddu markay aragtay cadeymaha iyo markhaatiyaasha la horkeenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxayna maxkamaddu ka hor cadeeyeen in eedeysana Mukhtaar Ibraahim Isxaaq iyo hooyadiisa Khayrto Shariif Xasan oo muran dhaxmaray isagoo arbaaxyo wajiga kaga dhuftay kadibna madax kaga dhuftay isla bartaasna ay ku geeriyootay marxuumadda maxkamaddu markay aragtay dukumentiga iyo qiraalka eedeysanaha laga qoray sawirada iyo waraaqda cadeymaha dhimashada marxuumadda markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareenka difaaciga eedeysanaha sidaas daraadeed maxkamadda waxa uu cadaatay dembiile gacan ku dhiigle Mukhtaar Ibraahim Isxaaq uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qancin raacfaan ayaa u furan sida sheegaysa warbaahinta qaranka Soomaaliya 178